michael obomneme waa 18 jir qadka dhexe ka dheela michael waxa uu inoo sheegay inuu dhawaan la kulmay wakiil kubadda cagta ah kaas oo u sheegay inuu leeyahay kartidii loo baahnaa ee uu u dheeli karo India. wuxuu bilaabay inuu ila soo xiriiro isagoo doonayay inuu ila shaqeeyo oo uu ii hayo heshiis India ah kadibna wuxuu i weydiiyey in naadigu uu daawaday fiidiyowgayga markaana waa inaan u diraa 350 neero taasoo ah lacagta fiisaha iyo tikidhka markaas ayay ahayd markii aan maamulahayga u imid. lacagta ay doonayaan kuwa ciyaartooyda qiimeeya caadi ayay ahayd ballanqaadka waxa la socda magac iyo dhaqaale balse bixintu waxa ay leedahay niyad jab iyo rajo la'aan. kadib martiqaadkii ayuu Denmark u bedelay waxaan aadnay safaaradda Denmark ee Abuja kadibna waxay ii sheegeen in ay been abuur tahay. nasiib wanaag michael waxa uu arkay inay been abuur tahay balse waxaa jira kuwa aan arag oo ku xanibma qaybo kala duwan oo adduunka ah kadib markii ay dabin ku dhacaan. Seyi Olowole oo 24 jir ah waxa uu ka tagay Nigeria kadib markii wakiil uu u xaqiijiyay in uu helay naadi Koonfur Afrika ah waxa uu ku istaagay Ghana halka ma sii dhaafin. waxaanu ku gorgortanay 250,000 waxaan u sheegay inaan lacagta inta leeg hayn waxaan ku gabagabaynay inaan bixiyo 200,000 ka hor intii aanan ka bixin Nigeria waxa uu ii sheegay inay qaadanayso 2 toddobaad kadibna waxaan ku yidhi waqtigu wuu socdaa haddii aadan waxba hayn lacagtayda si aan ku laabto dalkayga kadibna waxa uu igu yidhi aan ku geeyo Iran ama Sri Lanka waxa aan ku idhi taasi ma ay ahayn wixii aan ku ballannay. Seyi hooyadii oo ninkeedii ka geeriyooday waxay noo sheegtay in qoysku soo ururiyeen lacagta ayna adag tahay in ay hesho ilaa markaa kadib. waxaasi waa waxa dhiikar igu keenay ilaa hadda sababtoo ah waan ogaa haddii Seyi uu galo inuusan ka baxaynin ilaa hadda weli ma fiicni. Seyi waxa uu hadda ku xayiran yahay Accra waxa ku adag inuu baahidiisa daboolo aad ayuu uga xishoonayaa inuu dalka ku soo laabto sida Seyi ciyaartooy badan oo ku tababaranaya beerta indhaafa ee Accra halkan ayay ku xaniban yihiin. sheekooyinka ku saabsan ciyaartooy da'yar ah oo la qiyaamay waa kuwa baahsan ma jirto xog rasmi ah oo ku saabsan inta ay la eg tahay dhibaatada wakiilada shatiga leh waxa ay ka walaacsan yihiin in kuwa wax qiyaamo ay dabin weyn dhigtaan iyagoo isku dayaya inay helaan kuwa aan shakisnayn. markaad fiican tahay ee wakiilku arko waxay la mid tahay sida adigoo helay ceel shidaal ah ama ceel dahaba wakiilku isaga ayaa ku maalgelinaya isagaa si fiican u og inuu ugu dambayntii heli doono faa'iidada maalgashigaaga. iyadoo ay caddahay in aan la weynaynin dhalinyarada iyo ciyaartooyda kubadda cagta haddana ma yara xirfadda lagu heli karo kuwa been abuurka ah ilaa inta laga soo saarayo qaynuunka adag laguna xoojinayo shatiyada wakiilada waxaa jiraya cabsi ah in dhalinyaro badan oo Nigeria u dhashay ay dabin ku dhacaan.